asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa cabdiraxmaan, soo dhowaada mar kale. maanta waxaanu ka hadli doonaa Canada's economy. chapterkan waxaan xooga ku saari doonaa dhaqaalaha Canada iyo waxyaabaha uu ku tiirsan yahay, xiriirada ganacsi ee Canada kala dhexeeyo wadamada kale, iyo Canada xagga dhaqaale ahaan kaalinta ay adduunka uga jirto iyo wixii lamid ah. Canada's economy markaan ka hadlayno, marka ugu horeysa horta waxaan ka hadlaynaa a trading nation, ganacsiga ee wadanka uu leeyahay ama xiriirada ganacsiyeed ee wadankan kala dhexeeya wadamada kale. Canada has been a trading nation and commerce remains the engine of the economic growth. Canada waxay weligeedba ahayd wadan ganacsi, ganacsigana mar walba wuxuu ahaanayaa matoorka dhaqaajiya koriinka ganacsiga. Koriinka dhaqaalaha ula jeedaa dhaqaalo oo korayo ama kobcayo oo uu wadan yeelan karo ma jirto ilaa wadankaas inuu xiriir ganacsi uu la leeyahay wadamo kale. Si kasta uu wadanka qani u yahay, wadamo kale kama maarmo. Without engaging in trade with others, Canadians could not maintain the standard of living. Canada haddii aysan xiriir dhaqaalo ama xiriir ganacsi aysan la yeelanin wadamo kale, dadka Canadianka ah noloshooda heerka ay maanta ay joogto ma aysan joogi lahayn. yacni meesha ay maanta joogto way ka hooseyn lahayd. dabcan muxuu ahaa horumar kasta oo wadan sameeyo, ugu dambeyn waxaa faa'iideysanaya bulshada wadankaas ku nool ayaa faa'iideysanaysa. In 1988, Canada enacted free trade with the United States. 1988 Canada waxay xiriir ganacsi xor ah la saxiixatay Mareykanka. marka 1988 Canada iyo Mareykanka kaliya ayaa kala saxiixday. Mexico became a partner in 1994 in the broader North American Free Trade Agreement NAFTA. 1994 xiriirkaas ganacsi ee xurka ahaa ee Mareykanka iyo Canada u dhexeeyay waxaa kusoo biirtay Mexico. kadibna waxay samaysteen wax la yiraahdo NAFTA ama North American Free Trade Agreement ayay samaysteen oo loola jeedo heshiis ganacsi xur ah, yacni ka dhexeeyo dowladaha waqooyiga Mareykanka degan oo saddexdan wadan ah. marka xiriirkaas ay samaysteen oo micnaha ganacsiga xurka ah, maxaa faa'iida oo ka soo baxay? Over $1 trillion in merchandises in 2008. in ka badan $1 trillion oo badeecooyin ah oo ay wadamada isdhaafsadeen ayaa 2008 suura gashay. yacni 2008 markii la fiiriyo saddexdan wadan oo NAFTA ku bahoobay, ganacsigii dhex maray markii la qiimeeyo qiimo ahaan wuxuu noqday $1 trillion. waa lacag aad u badan. laakiin NAFTA waxaa lagu bedelay CUSMA. heshiiskaas oo lagu bedelay NAFTA wuxuu dhaqan galay July 2020. waxaa xusid mudan in macluumadan halkaan aan kusoo qoray aysan ahayn macluumad ku qoran buugga, sababtoo ah arrinkan wuxuu dhacay kadib markii buuggan la soo saaray. marka waa un macluumaad dheeri ah mooyaane wax buugga ku qoran ma ahan. marka CUSMAna waxaa loola jeedaa un Canada, United States, Mexico Agreement ayaa loola jeedaa. waa un tii oo kale, laakiin Mareykanka waxay u arkayeen gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka markaas madaxweyne ka ahaa Trump wuxuu u arkayay heshiiskii NAFTA in Mareykanka aysan wax badan faa'iido badan aysan ku qabin. saas daraadeed waxaa lagu qasbanaaday in wada hadallo haddana lagu noqdo, kadibna heshiis cusub la saxiixdo, kadibna waxaa ka dhashay heshiiskaas CUSMA. Canada has one of the largest economies in the world and is part of G8 group of leading industrialized countries with the United States, Germany, the United Kingdom, Italy, France, Japan, and Russia.
sidoo kale Canada waxay qayb ka tahay group la yiraahdo G8 ama group 8 la yiraahdo, groupkaas oo ka kooban dawlado maxaan ku yiraahdaa xagga warshadeynta ku hormaray. dawladahaas marka waa 8 dawladood hadii Canada lagu daro, waxay kala yihiin Mareykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Jabaanka iyo muxuu ahaa Russia iyo طبعا Canada. intaasaa ku bahooday marka G8 ayaa la yiraahdaa. marka inay Canada G8 qayb ka tahayna muhiim ayay u tahay koriinka dhaqaalaha Canada, muhiimad weyn ayay u leedahay. bal haddana aan eegno waxyaabaha saddexda shay ee ugu muhiimsan oo dhaqaalaha Canada uu ku tiirsan yahay maxay yihiin. kow waa service industry, labo manufacturing industry, saddex natural resources industry. waa saddexdan marka waxay kala yihiin service industry waa adeega Canada muxuu ahaa wuxuu ka mid yahay engine-ka dhaqaajiya dhaqaalaha Canada soo galo. manufacturing waxa warshadeynta sidoo kale. natural resources kheyraadka dabiiciga ah. saddexdaas shay marka mid walba gooni baan u sheegaynaa, tusaalena waan ka bixinaynaa. More than 75% of working Canadians now have jobs in service industries in the areas like transportation, education, healthcare, constructions, retail services, tourism and government. boqolkiiba 75 dadka Canadianka ah waxay ka shaqeeyaan service industry-ga ka shaqeeyaan. sida service industries-ka waxaa ka mid ah sida muxuu ahaa transportation-ka ama gaadiidka, waxbarashada, caafimaadka, dhismaha, retail services iyo maaragtay tafaariiqda, tourism and government, dalxiis iyo serviceska ay dawladda qabato. marka aan u gudubno manufacturing industries. manufacturing industries sideeda waxaa waaye make products to sell in Canada and around the world. yacni waa in maaragtay ay wax soo saaraan, ay wax sameeyaan products si loogu gado Canada gudaheeda iyo adduunka dacaladiisa. waxyaabaha marka Canada ay sameyso waxaa ka mid ah paper muxuu ahaa xanshiyaha wax lagu daabaco, technology equipment qalabka muxuu ahaa teknolojiyada, cunada, dharka iyo badeecooyin kale oo fara badan oo halkaan aan lagu soo koobi karin ayay Canada sameysaa. طبعا haddii aad xitaa dib u noqotaan waxyar oo aad chapterkii aan uga hadlaynay muxuu ahaa discoverieska iyo innovationska waxyaabaha Canada ay soo saartay, waad garan kartaa inay Canada aad ugu horumarsan tahay dhinacaas oo waxyaabo badan adduunka ay kusoo kordhisay. natural resource industry kheyraadka dabiiciga ah. kheyraadka dabiiciga waxaa ka mid ah forestry, fishing, agriculture, mining and energy. muxuu ahaa keymaha, beerta, macdanta iyo tamarta sida muxuu ahaa oil and gaska. The economy of many areas of the country still depends on developing natural resources, and large percentage of Canada's exports are natural resources commodities. dhaqaalaha Canada dhinacyo badan markii laga eego wadanka weli wuxuu ku tiirsan yahay kheyraadka dabiiciga oo koraayo maalin ka dambeeyo. percentage weynna waxyaabaha Canada ay dhoofiyaan waa waxyaabo badeecooyin dabiici ah. marka saddexdaanba kalama dhacaan, yacni aad ay maaragtay muhiim u yihiin wadanka dhaqaalihiisna muxuu ahaa qayb libaaxa ayay ka ciyaaraan. Over 3/4 of Canadian exports are destined for the United States. in ka badan 3 meelood 4 meel. okay markaad maaragtay waxyaabaha ay Canada dhoofiso oo dhan ay tahay 4 meelood, 3 meel oo 4taas meel ka mid ah waxaa loo diraa United States, Mareykanka. In fact, Canada has the biggest bilateral trading relationship in the world with the USA. xaqiiqdii Canada waxay la leedahay Mareykanka xiriir ganacsi oo ay laba wadan leeyihiin
xiriirka ugu weyn adduunka ayay Maraykanka la leedahay. Canada exports billions of dollars worth of goods and products every year. Canada waxay dhoofisaa badeecooyin oo lacagtooda ay u dhiganto billions of dollars. Yani badeecooyinkaas markii la suuq geeyo waxay keenaan ay waddanka soo geliyaan balaayiin dollar oo lacaga. Millions of Canadians and Americans cross every year in safety what is traditionally known as the world's longest undefeated border. Canadianka malaayiin Canadiana iyo Maraykan waxay si nabad ah uga gudbaan xuduudda sanad walbo. xuduuddaasna waxaa loo yaqaanaa the world's longest undefeated border, yacni xuduudda ugu weyn adduunka oo aanan la difaacin ama la ilaalinin. maxaa loola jeedaa? waxaa loola jeedaa badanaa markaad aragto laba wadan oo xuduud leh waxaa dhacdo in ma aragtay ciidan military ishor fadhiyo labada dhinacba. laga yaabo inaad dareento xoogaa yar ma aragtay in ma aragtay xoogaa xurguf iyo wax noocaas inay jiraan laga yaabo. laakiin Canada iyo Maraykanka saas ma ahan. waa ma aragtay laba wadan oo ma aragtay ka dhaxeeyo xiriir aad u wanaagsan. dhinac kasta hadii la yiraahdo xiriir ganacsi, xiriir diblomaasiyadeed, xiriir muxuu ahaa mujtamac ahaan labada society xitaa waa dad aad isugu dhow. At Blaine in the state of Washington, the Peace Arch inscribed with the words "Children of Common Mother" and "The Brethren dwelling together in unity" symbolizes the close relationship between US and Canada. meesha la yiraahdo Blaine ee ku taala muxuu ahaa gobolka Washington waxaa ku yaala taalo halkaas idinkaga muuqato oo ay ku qoran yihiin erayada "The Children of Common Mother", yani caruur isku hooyo ah. marka waxaa loola jeeda macnaha laba wadan oo dhashay oo kala waayo isku hooyo ah loola jeeda. sidoo kale dhinaca kale markaad eegto muxuu ahaa isla taaladii waxaa ku qoran oraahdaas oo dhahayso "Brethren dwelling together in unity", oo micnaheeda loola jeedo walaalayaal midnimo ku wada nool ayaa ku qoran. marka labadaas qoraal maxay ku tusayaan? waxay astaan u yihiin xiriirka dhow ee labada wadan ka dhaxeeya. marka borderkiina waa kana. marka waa border dheer haddana muxuu ahaa si nabada ay labada wadan isaga gooshaan shacabka degan. waxaa xusid mudan labadan wadan hadda xiriirkan saan u wanaagsan leh waxaa soo maray 1812 saan horeyba usoo baranay dagaal. Maraykanka ayaa waxay isku dayeen in ay Canada qabsadaan laakiin uma aysan suurgelin. taasna waa muhiim inaan xuso. sababta aan xusayana waxay tahay waxaan rabaa dadku inay fahmaan labada wadan haddii xurguf ama dagaal uu dhaxmaro micnaheeda ma aan xurguftaasi dagaalkaas weligeed inay yani ahaato wax jiro. labada wadan ay ka gudbi karaan oo xiriir sidaan oo kale wanaagsan ay samaysan karaan. maanta chapterkeenaas ama cutubkeenaas halkaas ayuu noogu egyahay. khayr badan ayaa idin rajeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.